bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan saaxiibayaal kusoo dhawaada barnaamijkeena dhacdooyinka caalamka oo aan kusoo qaadan doono ciidanka ilaalada kacaanka islaamiga ah ee Iran IRGC ayaa digniin culus u diray dalalka taageeraya weerarada ka dhanka ah Iran. Haddaba maxay tahay hanjabaadda adag ay sheegeen in ay la kulmi doonaan dalalkan haddii aysan isbedelin habdhaqankooda? Muxuu yahay war-saxaafadeedka ay IRGC soo saartay ka oo la xiriira howlgalka Nasr 2 iyo Iran oo mar kale ku celisay in dal kasta oo gacan ka geysta taageerada dhinaca weerarka ah uu wajihi doono jawaab adag haddii aysan wax ka bedelin habdhaqankiisa? Waxaan ku gorfayn doonaa inta aan ku guda jirno barnaamijkeena dhacdooyinka caalamka. Sidoo kale waxaan ku soo qaadan doonaa barnaamijkeena Masar oo xaqiijisay in ay weerar drone ah oo sababay dabkii qabsaday laba markab oo gaas sida oo ku sugnaa dekedda Damietta ee xeebta badda Mediterranean-ka. Tani ma markii ugu horeysay baa in dowladda Masar ay cadeyso in dabkaasi uu ka dhashay weerar halkii uu ahaan lahaa shil. Sidoo kale barnaamijkeena dhacdooyinka caalamka waxaan ku soo qaadan doonaa Sacuudi Carabiya oo doonaya in la dhiso isbahaysi caalami ah oo ilaaliya maraakiibta badda cas weerarada Xuutiyiinta, iyo Sacuudi Carabiya oo ka jawaabtay duqeymo cirka ah oo ay ku bartilmaamsatay sida ay sheegtay xarumaha militari ee Xuutiyiinta ee ku yaala dekedda Xudaydiya ee Yemen. Qodobadaas iyo qodobo kale oo xasaasi ayaan ku soo qaadan doonaa inta aan ku guda jirno barnaamijkeena dhacdooyinka caalamka. Ha yeeshee intaan u gudagalin dhammaan qodobadaas faahfaahintooda, waxaan ka codsanayaa haddii uu ka soo horbaxo muuqaalkeena fadlan like noo saar, la wadaag asxaabtaada haddii aadan ka mid ahayn bahdayada ee hoggaan, fadlan nagu soo biir oo channelka subscribe dheh, la wadaag asxaabtaada si muuqaalku meel dheer noogu gaaro, ka qayb qaado kor u kaca channelkeena. Waa maalinimo Khamiis ah, taariikhduna ay ku beegan tahay 30 Luulyo sanada 2026. Magacaygu waa Hashim. Ku soo dhawow mar kale iyo barnaamijkeena dhacdooyinka caalamka. Aynu ku bilownay ciidanka ilaalada kacaanka islaamiga ah ee IRGC ayaa digniin culus u diray dalalka taageera weerarada ka dhanka ah ee Iran, iyagoo haddaba ay sheegeen in ay la kulmi doonaan jawaab adag haddii aysan bedelin habdhaqankooda. Haddaba waa maxay war-saxaafadeedka ay IRGC soo saartay ka oo la xiriira howlgalka Nasr 2? War-saxaafadeedkan ayaa lagu yiri: dalalka ku lug leh taageerada cadowga weerarka ku haya Iran haddii aysan sixin habdhaqankooda waxay la kulmi doonaan jawaab adag. War-saxaafadeedka ayaa sidoo kale lagu sheegay in habeenkii xalay laba markab oo shidaal sida ay isku dayeen in ay maraan waddo aan ammaan ahayn oo ku taala dhinaca koonfureed ee marinka Hormuz, iyadoo tallaabadaasina lagu sheegay in ay dhiirigelinayeen diyaaradaha Mareykanka. Sida lagu sheegay bayaanka, dab xooggan ayaa ka kacay mid ka mid ah labada markab, taa oo sababtay in labada markabba si degdeg ah dib ay ugu laabtaan halkii ay ka yimaadeen. IRGC ayaa bayaankeeda ku adkaysatay iyadoona tiri: marinka Hormuz waa dhulkeena, waxaan si buuxda gacanta ugu hayaa ciidamada geesiyaasha ah ee badda ee IRGC. Waxayna intaa ku dareen: cid kasta oo shisheeye ah oo kumanaan kiiloomitir ka timid looma ogolaan doono in ay faragelin ku sameyso arrimaha halkaas ka socda. Ciidanka IRGC ayaa sidoo kale sheegay: annagoo Allah subxaanahu wa ta'ala tala saaranayna cadowga gardarada wata, maanta waa la ciqaabi doonaa. War-saxaafadeedku wuxuu mar kale ku celiyay in dal kasta oo gacan ka geysta taageerada dhinaca weerarka uu wajihi doono jawaab adag haddii uusan wax ka bedelin habdhaqankiisa. Sidoo kale waxaa lagu sheegay in marinka Hormuz aan dib loo furi karin intii ay sii socdaan, sida bayaanku uu sheegay hadallada ay ku tilmaameen kuwa xad dhaaf ah ee mas'uuliyiinta Mareykanka iyo faragelinta ay ku hayaan dhaqdhaqaaqa maraakiibta ee gobolka. Haddaba gabagabadii IRGC ayaa digniin u dirtay dhammaan dhinacyada arrinka ku lugta leh, iyadoo sheegtay: hanjabaadaha iyo faragelinta waxay xaaladdu ka dhigayaan mid sii adkeynaysa oo aad ugu sii cakiran. Waayahay, haddii aan u gudubno qodobka yaga ee xiga, Masar oo xaqiijisay in weerar drone ah sababay dabkii qabsaday laba markab oo gaas sida oo ku sugnaa dekedda Damietta. Dowladda Masar ayaa Khamiistan si rasmi ah u xaqiijisay in diyaaradda aan duuliyaha lahayn ee droneska loo yaqaano ay sababtay dabkii qabsaday laba markab oo gaas sida,
kuwa oo ku xirnaa dekada Diyamada ee xeebta badda Mediterranean-ka. Haddaba tani waa markii ugu horeysay baa la yiri ee dowladda Masar ay cadeyso in dabkaasi uu ka dhashay weerar halkii uu ka ahaan lahaa shil. Haddaba waa maxay war-saxaafadeedka ay soo saareen golaha wasiirada ee Masar? Golaha wasiirada Masar ayaa war-saxaafadeed uu soo saaray ku sheegay in aan weli jirin cid sheegatay mas'uuliyadda weerarka, waxaana sidoo kale oo xusay in hay'adda amniga iyo baaritaanka ay weli wadaan baaritaano lagu ogaanayo waxa dhacay, isla markaana la qaadayo dhammaan tallaabooyinka laga maarmaanka ah ilaalinta amniga qaranka Masar. Haddaba shirkadda Britishka ee Amrey oo ku takhasustay amniga maraakiibta ayaa Arbacadii sheegtay in qiimeynteedii ugu horeysay ay muujisay in diyaarad drone ah ay ku dhufatay markab Mareykan leeyahay oo keydiya gaaska oo ku xirnaa dekada Diyamada. Warbixintan waxay sare u qaaday walaaca laga qabo in colaadda Bariga Dhexe ay sii baahdo. 3 ilo oo ka tirsan ganacsiga maraakiibta kana warhaya dhacdadan ayaa sheegay in drone-ku uu ku dhacay markab keydka sabaynaya ee Energos Winter, taa oo dhalisay sabab markii dambe ku fiday markab kale oo lagu magacaabo Galslog Salim. Sida ay sheegtay kooxda Britishka ah ee Vanguard oo ku takhasustay qiimeynta khataraha badda, markabka Energos Winter waxaa ku dhacay walax aan la aqoonsan oo ku dhacday dhinaciisa midig, taa oo sababtay dab markii dambe lagu guuleystay in la damiyo. Ilaa iyo imika ma cadda cidda ka dambeysa weerarkan. Dhacdadan ayaa dhacday baa la yiri wax yar kadib markii Iiraan weeraro gantaalo ay ku qaaday ciidamada Mareykanka ee ku sugan Urdun, halka Mareykanka iyo Sacuudi Carabiyana ay weeraro ku qaadeen kooxo hubeysan oo ay taageerto Iiraan kuwa oo ku sugnaa Ciraaq. Dhanka kale, madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku hanjabay in uu jawaab ka bixin doono weerarada Iiraan, halka kooxda Xuutiyiinta ee Yemen ay ku dhawaaqeen in ay go'doomin dhinaca badda ah ku soo rogeen Sacuudi Carabiya. Arrinkan ayaa muujinaya in colaaddu ay gaartay heerkii ugu ballaarnaa tan iyo markii Mareykanka iyo Israa'iil ay bilaabeen duqeymaha ka dhanka ah Iiraan bishii Febraayo. Hay-adda wakaaladda wararka ee Reuters ayaa sheegtay in ay xaqiijisay goobta dhacdadu ka dhacday iyadoo adeegsanaysa muuqaal lagu baahiyey baraha bulshada. Xaqiijintaasi waxaa lagu saleeyay baa la yiri isbarbardhig lagu sameeyay kaabayaasha dekadaha, haamaha keydka, xogta raadraaca maraakiibta iyo sawirada dayax-gacmeedka. Energos Winter waa markab nooca FSRU oo ah markab loogu talagalay keedinta iyo dib u bedelidda gaaska dabiiciga ah ee dareeraha LNG-ga loo yaqaano. Markabkani wuxuu qaadi karaa baa la yiri ilaa iyo 138,250 mitir cube oo gaas ah. Markabka waxaa iska leh baa la yiri shirkadda Mareykanka Energos Infrastructure, halka maamulka farsamada, badbaadada iyo howlaha ganacsigiisuna ay maamusho shirkadda Wilhelmsen Ship Management oo fadhigeedu yahay Singapore, kana tirsan shirkadda Norwejiyaga ah ee Wilhelmsen Group. Wasaaradda Batroolka ee Masar ayaa Arbacadii sheegtay in dabkii ka kacay dekada Damied si degdeg ah ay ugu falceliyeen kooxaha dabdamiska ah iyo ciidamada ammaanka, isla markaana dabka si dhaqsi ah loo xakameeyay. Wasaaraddu waxay sidoo kale xaqiijisay in dhacdadu aysan geysan wax dhaawac ama dhimasho ah. Wasiirka Batroolka Masar Karim Badwi ayaa goobta gaaray si uu toos ula socdo howlgalka gurmadka iyo tallaabooyinka lagu xakameynayay xaaladda. Waayahay, haddii aan eegno qodobka ugu dambeeya oo ah Sacuudi Carabiya oo doonaysa in la dhiso isbahaysi caalami ah oo ilaaliya maraakiibta badda cas ee weerarada Xuutiyiinta. Sacuudi Carabiya ayaa wada dadaallo lagu dhisayo isbahaysi caalami ah oo ujeedadiisu ay tahay ilaalinta maraakiibta isaga goosha badda cas si looga difaaco weerarada ay geystaan kooxda Xuutiyiinta ee Yemen. Arrinkan ayaa Arbacadii shaacisay 2 qof oo xog ogaal u ah wada tashiyada socda. Hagaag, sida ay sheegeen ilahaasi weli si rasmi ah looma go'aamin dalalka ka mid noqon doono isbahaysiga, waxaana hadallo arrintaasi la xiriira lala wadaa 10 dal oo kala duwan. Kooxda Xuutiyiinta oo taageero ka hesha Iiraan ayaa 20kii Luulyo ku dhawaaqday in ay ku soo rogayso go'doominta dhinaca badda ah maraakiibta Sacuudi Carabiya ee maraysa badda cas, waxayna sheegeen in tallaabadan ay jawaab u tahay waxa ay ku tilmaameen go'doominta Sacuudiga ku hayo Yemen, eedeyntaas oo dowladda Sacuudi Carabiya si cad u beenisay. Hagaag, tan iyo markii ay ku dhawaaqeen go'doomintaas, Xuutiyiintu waxay sheegeen in ay fuliyeen weeraro ka dhan ah maraakiibta Sacuudiga ee ku socdaala badda cas.
dhankeeda Sacuudi Carabiya waxay ka jawaabtay duqeymo cirka ah oo ay ku bartilmaamsatay sida ay sheegtay xarumaha militari ee Xuutiyiinta ee ku yaala dekedda Xudaydiya ee Yemen. Riyadh waxay ku doodaysaa in xarumahaasi loo adeegsanayay hanjabaadyo iyo weeraro ka dhan ah maraakiibta ganacsiga ee maraysa marinbiyoodka muhiimka ah. Go'doomintan dhinaca badda ah ayaa furtay jiho cusub oo colaadda ka tirsan dagaalka ballaaran ee la xiriira Iiraan, iyadoo si toos ah u saameysay baa la yiri Mareykanka iyo xulafadiisa. Waxa kale oo ay ballaarisay weerarada lagu beegsanayo maraakiibta shidaalka iyo kuwa sida tamarta iyo sahayda kale, kuwa oo maraya marinbiyoodka ee ka baxsan gacanka Carabta, taa oo sare u qaaday qiimaha shidaalka ee suuqyada caalamka. Muuqaalka like saar, la wadaag asxaabtaada, aragtidaadana qaybta hoose ee faallooyinka noogu reeb. Aad iyo aad ayaad u mahadsantahay.